siyaasiyiin ka tirsan xisbiga mucaaridka ah ee wadani oo wareysi gaar ah siinaya telefishinka caalamiga ee City Cable ayaa cambaarayay xadhigga lagula kacay mid ka mid ah siyaasiyiinta xisbiga mucaaridka ah ee wadani ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale saxufiyiin ku xidhan gobolada Saaxil iyo Gabiley. Siyaasiga ku xidhan gobolka Togdheer ayaa ah gudoomiye ku xigeenka kaambeynka ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani. xukuumadda cusub ee Muuse Bixi hogaaminayna waxaanu leenahay Muusow waxaad ugu walqalaysaa xukuumaddaada xarig intii imika lagu dhaariyay talada dalka xarig fara badan oo soo noqnoqday ayaa jira. intaa waanu ka hadlaynaa hadday tahay wariyaashii berbera lagu xidhay, hadday tahay kuwii Gabiley lagu xidhay, hadday tahay mas'uuliyiin xisbiga wadani oo la xidhay, intaa tiifiyada waa laga hadlaya xarigaas. waxaanu leenahay madaxweynaha xukuumad cusub baa tahay, xukuumadda cusub xarig ha ugu walqalin. xarigan la caadaystay ee mas'uuliyiinta xisbiga wadani iyo wariyayaasha madaxa bannaan lagu xidhxidhayo waxaanu ku leenahay jooji oo waxaad u leexataa dariiqa waxqabadka halkii aad xarig awoodda asaari lahayn dadka wax u qabta. sida ay doorashadu u dhacdayna waynu ogeyn, sidii xisbiga wadani u tanaasurayna waa la ogaa, shacabka reer Soomaaliland waa ogaa. xisbigii wadani in xarig loogu abaalgudana ma soconayso. kulmiye iyo xukuumaddu waxay ka dhigayaan xarigoodii xilligii Siyaad Barre waxa la oran jiray kabtan kufay ku qosle ayaa lagu xidhmi jiray. arrimo aan sidii ka fogeyn baa socda. war mar kasta oo ay taasu soo noqnoqoto oo xorriyaddu ay cidhiidhi gasho waxa weeyaan halganku wuu soo noqonaya. dacwadaha madaniga ah marka ay dhacayaanna process bay leedahay, processka hal mariyo araynaya xarga Mukhtaar gudoomiye ku-xigeenkii kaambeynka gobolka Togdheer oo loo dhacdhiciyay xabsiga weyn ee Burco muddo ku xidhnaa saldhigga dhexe Burco isagoo aan helin wax kalsoonaya maxkamad toona iyo cadaalad toona. waxaan leeyahay xorriyadiisa loo soo celiyo isagii wariyaashii lagu xidhay gobolka Saaxil. waxaad mudaawadii wasaaradda arrimaha gudaha inay marorsadeen maayiradu waan meeshii wasaaradda arrimaha gudaha laga saarayba malaadee waxa ka aban malay Togdheer maayirkan iyo ka Gabiley iyo ka Berbera maayirada intaan ay dheeriin wada aragtay dheeriin. waxaan leeyahay iyagana sharciyada ku soo noqda wasaaradda arrimaha gudaha bulshada balbaadi doon halka ku maqantay maxaad ka in wala magacaabay laakiin meel fadhiyo damo baynaan arag. waxaan leeyahay maxaa taladu yaan naga noqontay askarta maxamed wax qabad baa loo baahan yahay ummaddu wixii dambi helaan cadaalad helaan, wixii dambi lahayn cadaalad helaan. waa Cabdiraxmaan Ciise, telefishinka caalamiga City Cable magaalada Burco.